ololaha nadaafadeeda kor loogu qaadayo bilicda magaalada Beledweyne ee maanta laga sameeyay magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ayaa ahaa kuwa wax looga qabanaya qashinka yaalla hareeraha wadooyinka iyo waliba webiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Beledweyne maadaama qashinka ay ka dhashaan cudurro halis ku ah caafimaadka bulshada waxaana fuliyay ololahani kambaniga Deegaanbile oo ah kambani ka shaqeeya nadaafadda iyo dib u soo celinta bilicda deegaanka kaas oo kaashanaya dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ololaha ayaa laga sameeyay wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Beledweyne iyo sidoo kale webiga hareerihiisa gaar ahaan buundaweyn oo ay leena qashin aad u fara badan kaasoo lagu shubay webiga Shabeelle sababayna inay isbedelaan midabka iyo dhadhanka biyaha webiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Beledweyne qashinka lagu shubay awgees Faadima Maxamed Cabdulle gudoomiyaha kambaniga Deegaanbile ee fuliyay ololaha nadaafadeed iyo waliba Cabdullaahi Cabdi Qoofi oo kamid ah maamulka kambaniga Deegaanbile ayaa si wadajir waxay faahfaahin uga bixiyeen ololaha nadaafadeed iyo goobaha ay ka sameeyeen waxaana dadka reer Beledweyne ugu baaqeen inay wadajir uga shaqeeyaan nadaafadda qashinkana ay geeyaan goobo uu kambanigu u diyaarin doono si wax looga qabto nadaafadda waa kuwan ayagoo arrimahaas iyo waliba waxyaabaha ku dhaliyay ka shaqeynta arrimaha nadaafadda ka hadlay waxna hadaladoodii ka mid ahaa nadaafadda ay waxaan ka shaqeynaynaa maalintii labaad waxaan ka bilownay shalay maxaan ku dhahaa argada ilaa arag labaad ilaa isbitaalka aan nadaafinay haddana waxaan u soo laabanay labada buundooyin hadda taargada aan ka bilownay waxaa yaala qashin fara badan oo indhihiina ku arki doontiin alxamdulilah ilaahay wuxuuna garsiiyay qashinka inaan hadda ka nadaafino nadaafadana waa nolosha barkeeda nadaafad la'aan hadday dhacdo wax nolol yaraa ma jiraan maadaama hadda webiga uu guray oo biyo yareeyay qashinna si aaday loogu shubay qof walba inuu gurigiisa qashin waxaa nasiib darre gurigaada inaa qashin ka soo xaaqday oo ka soo nadiifsay webiga ilaahay nagu galadaysto oo dhex marsiin inaan qashin ku beegno taas waxaa waaye reehira mid nasiib darre ku ah waaye gurigaada qashin ka soo nadiifisay biyihii oo xoolaha noo cabaayeen oo dadka reer tabareedka aan biyo fiican daadi gada kartid dad waxaa jira aan biyo fiican gada karin oo biyaha isticmaalo waxaa nasiib darre inaa gurigaada qashin ka soo xaaqdid ama goobtaada ganacsi ama meheradaadii ama maqaayadaadii aad ka dhigatid god qashin webiga ma anaga mu dul qaadanayno kambanigan uma dul qaadanay in laga dhigto webiga god qashin shalay buundadan ilaa bariga ku dhex jirnaa buundaweyn khaasatan buundaweyn qaybta webiga xagiis sana buundadan halka qashin yaallo rafaadka meesha yaalla ka muuqda nadaafad darrada annagoo markaa aragnay in micnaha marka gobolkan Hiiraan khaasatan Beledweyne in nadaafadda xaggeeda aan ka shaqeyno waxna aan ka qabno wixii aan ka qaban karno ummadda marka waxaan u sheegaynaa oo caalamka gaarsiinaynaa nadaafaddaas in wixii qashin ah meesha loo cayim doono inay geeyaan webigana qashinka laga dhaafo maqaayadaha sida timajaraha oo kale sida ma aragtay xaafadaha guryaha sida bakhaarada beledka wixii micnaha ma aragtay oo ganacsi oo dhan ummadda waxaan u sheegaynaa aan gaarsiinaynaa nadaafaddaas inay u sameeyno meel baabuur aan qaadaa oo meesha geynaa qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne gaar ahaan buundaweyn ayaa soo dhaweeyay ololaha nadaafadeed oo wada kambaniga Deegaanbile ayagoona ballan qaaday in ka bulshada ay garab istaagayaan kambaniga Deegaanbile isku xilqaamay ka shaqeynta nadaafadda magaalada Beledweyne dhibaatada qashilku waa dhibaato aad u fara badan waay maxaa yeelay waxaa lagu ridayaa bulaacadaha xafaayadaha arga baqtiyay bulaacadaha timajarayaasha qashinka wax lagu shubaa webiga wuu uray wax uu daneey waa la waay dadkan baa ilaahay noo keenay marka dadkan uu Deegaanbile wado waan u duceynaynaa dad fiican sharaf leh ma arkin noocaan wali aniga waa dad aanu sharaf leh waa lu qayr waan taageeraynaa xaafadaha waa baraarujinaynaa waan taageeraynaa waan la shaqeyn doonaa hanoolada kambaniga Deegaanbile noolow Deegaanbile إن شاء الله هرمنين تبلع ده مجال Beledweyne فضلاً كفوجي قشين كجوابها جناعسي كهرت سيل لول إلاليو بلع ده مجال يعفمات كبرشدة إن شاء الله تعالى ولا شقينا قعمة فرن إذا كسو دوينينا إن شاء الله تعالى إلهنا وحن كبرينا إن أهر مران الله وبركاته وعمهم بلينا يا كمبني غير هذا Deegaanbile وهذه هذا تدالي Cabdi Xuseen Cismaan ku-xigeenka dowladda hoose ee degmada Beledweyne isla markaana ku hadlaya afka maamulka dowladda hoose ee degmada Beledweyne ayaa digniin adag u diray bulshada magaalada gaar ahaan kuwa qashinka ku shuba webiga iyo wadooyinka magaalada waxaana uu mahad celiyay kambaniga isku xilqaamay ka shaqeynta nadaafadda iyo dib u soo celinta magaalada Beledweyne ee Deegaanbile iyo qof walba ee qowl iyo ficil ka geysa arrimaha nadaafadda iyo horumarinta deegaanka barnaamijkan waxaa iska kaashtay hay'adda la yiraahdo Hiiraanbile iyo dawladda hoose ayaa iska kaashtay oo howlahan isla wado isla qabanayo waxaan rabnaa dadka
buundada qashinka ku shubo inaan ugu digo oo habeen iyo maalin qashinka buundada ku daadinayo waxaan ugu digayaa in ay qashinka ay ka joojiyaan qashinka in ay ka joojiyaan ay fahmaan in ay waddankooda cid kale wax ugu qabanaysa aan jirin ayaga mooyaane dadka in gaarida ku soo qaado oo yacni maaragtay buundada ku shubaayo iyo dadka oo yacni maaragtay jawaanyada soo qaado oo buundada korkeeda yacni maaragtay ka daadinaya qashinka waxaan ugu digaynaa in ay qashinka ay ka joojiyaan Khalid Xumaa Ismaaciil Kacse Hirshabelle TV Beledweyne